gudoomiyaha degmada Boosaaso Cabdifataax Shanle xildhibaanada golaha deegaanka uu helinayo taliye ku-xigeenka qaybta booliiska ee gobolka Bari ayaa hadhimo sharafeed ku maamusay Generaal Ayuub Cabdirasaaq iyo Afayeen Food Cade oo socdaal ugu kuurgeliyay geedi socodka dimuqraadiyad ku maraya gobolada Puntland iyo dhulka SSC Khaatamo. runtii waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan soo dhaweyno Boosaaso ku soo dhaweyno mudane Generaal Captain Ayuub dabcan waa tayta la badan yahay oo dhanka xilalka ciidamada ay si kala sareeyaan ma garan karo dhags bulshada ku sugaysa ku soo dhaw deegaankaaga dadka ay ku soo dhaw oo lagu sugayay ka degmo ahaan kulay gudoomiyihii ba wixii kelmada u deynaya shacabka reer Boosaaso ee ku sugayeen waa imaatankaaga adiga ragaaga iyo asxaabta iyo dhammaan tiimka baxda saxaafadda Generaal ku soo dhaw magaalada Boosaaso sodhaweynteena noo shalan ku bilownay gudoomiyaha holo shaqeey waxyaalo ku maqlaa maanta halkan dad Boosaasana joogto gudoomiye shanana haysato isticmaalna ka qadeynayso wala waa cadahina Boosaaso joogto garbaagana la taagan yahay Generaal soo dhawow marlaadi mar saddexaad ba soo dhawow insha Allah qodada halka gudoomiyuhu ugu sameeyana halana gudoomiyaduna waa ku maasan tahay sida wanaagsan jananka iyo xildhibaanada iyo annaga iyo kulli baad noocaasantay waa ka mahad celinaynaa aniga iyo wafdiga aan la socday Generaal Ayuub iyo Maxamed Bakayle iyo Brother Food Cade sida wanaagsan oo helnimada leh oo xalaalnimada leh oo noo sharafteen oo noogu casuunteen isticmaar Peace Garden oo ah meel aad iyo aad looga taxadaray juhdi la geliyay aad loo qurxiyay dad yowga sida goonida loo tixgelinaya ama loo weyneynaya lagu casumo sharaf bay noo tahay tolkayaatiin ehelkayaatiin madaxdayaatiin martiqaadkaas qiimaha badan aad noo sameyseen walaalayaal waa idinka gudoonay sharaf bayna noo tahay inaan xaruntii ganacsiga joogno oo sidaana loo sharfo guud ahaan shacabweynaha reer Boosaaso oo dad wanaagsan oo khayr badan oo ehelnimo iyo macaan tusay oo shalay waagu markuu bariyay ilaa iyo xalay maqribnimadiina galbinayay oo goobo badan geeyay oo walaaltinimadooda iyo macaankooda tusay marnaba kama mahad celin karno waxaan dareenay lahaansho waxaan dareenay inaan dhulka iyo dadka iyo deegaanka u dhalanay waxaan aragnay dhinaca kale ee reer Boosaasoodka waligeeyana reer Bariga wuxuun baa nalooga sheegi jiray ama ma ogtahay dad kale si kale naloo tusi karay laakiin qofnimadooda iyo walaaltinimadooda iyo wanaagooda iyo khayrkooda iyo helnimadooda iyo rixnimadooda baan shalay aragnay waa ka mahad celinaynaa ilaahay idin darajeeyay leenahay munaasabadan weyn oo lagu soo dhaweynayo Generaal Ayuub haliyeyga sidoo kale waftigii qiimaha lahaa ee la socday ay ugu horeeyaan qalas Bakayle iyo qalas Food Cade iyo Islaan Xabiib Faarax intaas kadib waxaan rabaa halkan ka salaamo dhamaantood ay ugu horeeyaan xildhibaanada iyo odayaasha magaalada iyo isinku run ahaantii jacayl la jecel yahay iyo wanaag loo hayo iyo qadarin iyo xushmad ba tiimkaas uu hogaaminay generaalku ilaa shalay nala joogay magaalada Boosaaso loo soo dhaweynayay hadee waad ogeedeen oo shalay magaalada Boosaaso cid kuma harino waa la isugu soo baxay airportkii dadkaas oo dhan waxa ay qoraxdaas iyo halkaas u taagnaayeen waxa weeyaan waa qiimeyn ay qiimeynayaan iyo weyneyn ay weyneynayaan generaalka generaal waxa ku leenahay magaalada ku soo dhawow dadkaaga iyo dalkaaga ku jecel ku soo dhawow insha Allah ta'ala hadda waa bilowgii weeye laakiin inta aad nala joogto insha Allah ta'ala si ka weyn baa insha Allah ku soo dhaweyn doonaa aad baan idinka mahad celinaynaa soo dhaweynta qiimaha badan oo ilaa shalay ilaa maanta aad soo dhaweyseen runtii waxaan dareesay niman dalkooda yimaanaan nahay waanu ahayn laakiin inta maana filin ilaa heerka in waxa weeye ay aad intaas soo dhaweynaysaan oo soo dhaweynta leeg noo sameeynaysan waxa weeye Boosaaso waa hooyadii Puntland weeye runtii aad baan ugu faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaadba aniga iyo saaxiibaday Ayuub iyo waxa weeye Bakayle markii hore waxa weeye gobolada kale ka bilaabeen laakiin waxaan hooyada dhaafinina hooyada hadaa dhaafta wax weyn inta kale uga gudbiyeysaan oo idinka mahad celinayna gudoomiye adiga iyo wax weeye saraakiisha xildhibaanada iyo shacabka sharafta leh gudoomiye shan la saaxiibkay weeye marka laga soo tago asmaadan iyo Boosaaso laga soo tago midna ay sheegay haday wuxuu ka soo horeeyay aniga ma soo horeeyno meeshan waa ku koray Boosaaso magaalada soo korisay weeye waxbarashadana ilaa Xamdaan baan kaga baxay magaalada aan ku kibri kara ma aha magaaladii aan caadi u lahaa dadku reer mudug bay ku taliyeen laakiin mudug ana weyn baantay oo weynaantayda un bay nafacsadeen
laakiin magaalada tan ay leh gudoomiye mar labaad iyo saddexaad baa kaaga mahad celinaya soo dhaweyntaada quruxda badan mar haddaad shalana la joogtid beertii isticmaarna aad joogtid soo dhaweyn kuu dhiman oo qof lagu maamuusi lahaa ma jirto ugaasada garbaha ka fadhiyaan marka mar labaad iyo saddexaad waxaan leeyahay mahadsantihiin shacab weynihii aad salay soo saadheen oo amnigooda sugteen ciidan ahaan maamul ahaan iyo waad kaga mahad celinaya mar labaad iyo saddexaad waxaana dareensiiseen waqtina geliseen lahaanshaha magaalada iyo waxa la yiraahdo iyo meesha ay ka joognaan dareensiiseen thank you baan leeyahay mar saddexaadba gudoomiye adeer si gooniya baan kugu mahad celinayaa oo ilaa shalay marna qorrax u taagnaa ilaa maantana gacanta nagu haya mar labaad iyo saddexaad waxaan ku leeyahay mahadsantahay thank you baan leeyahay dhammaan reer Boosoodna waxaan leeyahay inta idinka filayay waa idinka helay waana mahadsantihiin